قصة عجيبة ريا رمودي رامي الشمالي وحو أها 23 جر u dhashay Lebanon wuxuuna kamid ahaa kooxda fanaaniinta la dhaho Star Academy Rami waxay qisadiisu ku bilaabanaysaa sidatan aniga iyo saaxiibkay Maxamuud Shukri waxaan habeenada kamida ku soo daahnay caways waxaan soo qaadanay gaari si aan u gaadhno gurigeena wuxuu gaadhigu ka degtay bundo aad u dheer isla markiiba gaadhigu wuxuu galay khalkhal ana waxa ay soo hormaray albaab aad u madow Rami Shimali riyadani waa mid ka dhamaan la xasuustiisa wuxuu la wadaagaa markasta asxaabtiisa waxay iyaguna ku qanciyaan inay tahay riyo khiyaaliya Rami cuntadu ma dhadhanto xafladihii damaashaadkana ka go waxaad moodaa inuu geeriyo soo dhadhamiyay xaaladiisu way cuslaatay laakiin wali waxba riixaya ka awood badan Rami Shimali markasta uu imaado halkii tababarka uga socday isagii asxaabtiisii Star Academy wuxuu soo xasuusan jiray riyadii waqtigu wuu degdegayaa saacaduna way isguraysaa maalinba maalinta ka dambaysa waxa loo sii dhawaanayaa waqtigii riyadii Rami Shimali ay rumoobi lahayd Rami Shimali wuxuu qorshaystay inuu galo safar wuxuu ka soo kicitamay dalka Lebanon wuxuuna u soo dhaqaaqay inuu soo aado dalka Masar uu ku noolaa saaxiibkii oo aad u jeclaa Rami wuu nabad yimi waxay kulmeen saaxiibkii waxay guda galeen fadhiyo u gaara iyo cawaysyo badan Rami iyo saaxiibkii Maxamuud Shukri waxay habeenada kamida ku soo daaheen caways waxayna soo qaateen gaari si ay u soo gaadhaan gurigooda Rami Shimali iyo saaxiibkiis Maxamuud Shukri soo kicitameen waxay soo qaateen gaarigii waxay soo socdeen cabaar waxay soo wada qoslaanba waxay soo gaadheen bundadii weyneed ee Qaahira ee la dhihi jiray 6 October waxay galeen shil degdeg ah waxayna ku nafaayeen labadoodiiba halkaas Rami waxa la tusay digniin waxayna qisadiisu ugu sugan tahay cibra dhalinta ku taxan fanka jecel inay fanaaniin noqdaan amaba fanaaniinta ah Rami nasiib uma yeelan inuu la kulmo culumo si ay ugu turjumaan riyadiisa